horumarka tiknoolajiyada casriga ah waxay fududeysay in bani'aadamku si fudud uu ku booqday xiddigaha, meerayaasha iyo qaybo badan oo ka mid ah koonka. Haddaba haddii bani'aadamku isku dayo in dhulka uu qodo qodid aad u qoto dheer ilaa geeska kale ee dhulka, kadibna uu ka dhex bixi lahaa, maxaa bani'aadamku uu la kulmi lahaa? Sidoo kale haddii aan ka soo qaadnay in god sidaa u dheer uu bani'aadamku u qoday, godkaa dheer ee dhulka hoostiisa ah maxaa ku dhex jiro oo la arki lahaa? Ka hor intaanan bilaabin muuqaalkeenu, haddii muuqaalada noocan oo kale ku cajabgeliyaan si aan ku aragno haddii aad wax ka faa'iiday, laag saaro mahadsanid. Haddii aan ka soo qaadnay in bani'aadamku uu qoday god labada gees ee dunida isku furan, midkeenna isku dhex tuuri lahaa muddo 40 daqiiqo oo xawaare ah ayuu ku gaari lahaa geeska kale ee dunida. balse qawaacidda fiisigiska ee dhulku waxay mar walba yarayn lahaayeen xawaaraha dhaqdhaqaaqeena. Banka koowaad ee godkaan isku soo dhex tuuran si degdeg ah cufis jiidadka ayaa si xooli ah inoo soo jeedan lahaa. Banka aan soo gaarna sentraalka dhulkuna ma istaagi lahayn sababta momentigeena dartiisa, waayo xawaaraha kor aan uga soo dhacnay ayaa ah mid xooli oo zaa'id ah, balse sentraalku mar walba aan cirifka kale uga sii fogaano xawaarahan aad ayuu u soo yaraan lahaa. si kastoo ay haatana cirifka kale ee dhulku waanu gaarin lahayn. Markaan cirifka kale ee dunida aan soo taabanana si degdeg ah haddana kor ayaan dib ugu noqon lahayn sababta gravitationkeena dartiisa. marka aan soo gaarna sentraalka dhulkuna awoodda fisjiidadku waxay noqonaysaa 0, waayo masaafo walba ee dhulkaan u jirna xilligaas waa mid isleeg. waxaanu noqon lahayn sida qof spaceka dhulka ku dhex sugan oo kale. si aad u fahamto fisjiidadka sidiisaba wuxuu si toos ah ula xiriiraa maaska meerayaha. meerayaha Mars maadaama dunida uu ka weyn yahay gravitationkiisu, marka dunida loo eego waa mid aad u yar. sidoo kale bishuna maadaama ay ka yar tahay Mars, gravitationka bishuna waa mid aad u yar. si kale haddii aan u dhahno qof culayskiisa ahaa 100 kilogram, haddii meerayaha Mars uu isku cabiro cabirkiisu waxa uu noqon lahaa 38 kilogram. sidoo kale haddii qofka bishu isku cabir lahaa waxa uu noqon lahaa cabirkiisu 16.5 kilogram. dabcan tani waa formulo xisaabaad physics kadib natiijadii aan soo saarnay inagoo uga qiyaas qaadanayna xiriirka gravitationka iyo maaska meerayaha. haddaba marka laga soo tagay xisaabaadka teoriga, suuragal ma tahay dhulka in la qodo ilaa dhanka kale? suuragal ma aha marnaba in dhulka la qodo, waayo mar walba ee bani'aadamku dhulka uu hoos u sii qodo waxa uu la kulmayaa kulayl xad dhaaf ah. haddaba waa maxay kulaylkan dhulka dhexdii ku dhex jiro? si aan u fahamno kulaylku, waxaa muhiim ah inaan fahamno dhulka naga hooseeya sida uu u samaysan yahay iyo dabaqyada dhulku sida ay yihiin. sida rasmiga ah, haddii qof dhulka uu qodo 1.5 mitir kadib waxa uu la kulmayaa qubuuraha dadkii dhintay. haddii 3 mitir dhulka hoos loo sii qodana waxaa la helayaa tixriyada dhulka. dabcan tixriyadani siday ugu nool yihiin dhulka hoostiisa iyo waxay ka qabtaan, inkastoo ay wanaagsan tahay in mowduuc kale lagu soo qaato, haddana waxa ay door muhiim ah ka qayb qaataan nolosheena. haddii 6 mitir dhulka hoos loo sii qodana waxaan la kulmaynaa halka muhandisiinta macdan raadiyayaasha ay wax ka raadiyaan. haddii 12 mitir dhulka hoos loo sii qodana waxaan la kulmaynaa godkii ugu dheeraa ee abid xayawaan uu qoday. dabcan yaxaasida ugu halista badan dunida, yaxaasida Niil. haddii 85 mitir dhulka hoos loo sii degana waxaa ku yaala dhismooyin magaalo ah oo waqti lagu noolaan jiray. waa magaalo kabasitigeeda uu la eg yahay meel ay ku noolaan karaan 22,000 oo qof ah. haddii aad danaynaysa in magaaladani wax badan oo ku saabsan inaad ogaato, hoos inaad inoogu soo qorto waa ay kugu filan tahay. haddii dhulka 100 mitir hoos loo sii degana waxaan la kulmaynaa halka xukuumaduhu hubabka nuclear-ku suntiisa ay ku qariyaan. haddii 122 mitir dhulka hoos loo sii degana waxaa la kulmaysaa halka ugu dheer ee xidid geed uu soo gaaray, waana geed timir ah South Africa ku yaala. haddii 240 mitir dhulka hoos loo sii degana waxaa ku yaala tuneelka Seacon ee isku xiran jasiiradaha Honshu iyo Hokkaido dalka Japan. haddii 283 mitir dhulka hoos loo sii degana waxaa ku yaala tuneelka Iskunda dalka Norway. haddii 305 mitir dhulka hoos loo sii degana waxaa ku yaala halka atom bambooyinku xukuumaduhu ay ku qariyaan. aad ay u kala duwan yihiin masaafadii hore ee aan kuu soo sheegay iyo midan. haddii 392 mitir dhulka hoos loo sii degana waxaa ku yaala godka ugu dheer ee abid bani'aadam gacan uu ku qoday, godka Wadding Dean. waxaana la qoday 1962
waxa uuna ku yaalaa Ingiriiska. Haddii 603 mitir dhulka hoos loo sii degana waxaa la kulmaysaa godka Fartolofika. Godkani haddii si toos ah kor lagaaga soo tuuro in aad hoos soo gaarto waxay kugu qaadanaysaa 20 ilbiriqsi oo soo dhicid ah. Waxaa intaa ka sii daran haddii 3132 mitir dhulka hoos loo sii degana waxaa la kulmaysaa godkii ugu dheer dunida South Africa. Godkani wuxuu leeyahay wiishkanina inaad hoos soo gaarto waxay kugu qaadanaysaa 40 daqiiqo ah, waana godka Moab Coast Song loo yaqaano. Haddii 3600 mitir dhulka hoos loo sii degana waxaa la kulmaysaa unugyada badan eukaryotiga, dabcan unugyada sida tixniga oo kale ah. Intaa wixii ka dambeeya qofku waxa uu dareemayaa kulayl xagga hoose ah oo dhulka ka imaanayo. Balse bani'aadamka isagoo qalabyada casriga ka faa'iidaysanaya waxa uu gaaray ilaa 10999 mitir dhulka hoostiisa ah inuu gaaro godka Mariana. Godkani waxa uu leeyahay qiso cajiib ah, waxa uuna ku yaalaa badda hoostiisa waxaana laga helay bac khafiif eber ah. Intaa kaliya ma aha, bani'aadamku waa uu sii dhaafay 12262 mitir ayuu dhulka qoday. Midoogii Sofiyeedku godkii ugu dheeraa ee dunida ayay qodeen Kola Super, balse dantii ay ka lahaayeen iyagoo aanan gaarin ay iska dhaafeen sababta kuleyl dartiisa. Waayo heerkulku wuxuu gaaray 180 darajo oo kuleyl ah. Qofka inuu ka shaqeeyo marka laga soo tago xitaa aaladaha lagu shaqeynayo suuragal uma naqanin kuleylka intaa leeg inay ku dhex shaqeeyaan. Adkaanshaha qolfoofka sare ee dhulka oo keliya ayaa waxa uu gaarayaa 7000 oo mitir. Santanka dhulka ilaa cirifka korona waxa uu gaarayaa 6371 kilomitir. bani'aadamkuna dadaalkiisa oo dhan marka la isku geegeeyo waxa ay noqonaysaa masaafo aan waxba micno lahayn. Si muuqaalka uusan u dheeraan waxay ila tahay in macluumaadkani wax badan aad ka faa'iiday. Sidoo kale haddii muuqaalada shaashada kaaga muuqda ay ku cajab geliyaan waad daawan kartaa. Haddii aad nagu cusub tahayna gambalaalku waad furan kartaa.